cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi curo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ay maanta ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore dalka Soomaaliya Cumar Carte Qaalib kaasi oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa isla markaasina sanadihii la soo dhaafay fadhigiisu ahaa kullu nafsin daa'iqatul mawt ilaahay ballan qaaday in qof kasta dhimanayo maanta waxaan joognaa aaskii Cumar Carte Qaalib oo ahaa tiirarka taariikhda Soomaalida ku waaweyn mid ka mid ah maalintiisii bay noqotay Cumar taariikhdiisa lama koobi karo anna ma koobi karo laakiin waxbarashada Somaliland dadkii tiirarka u taagay uu ka mid ahaa macallin buu ahaa wuxuu noqday diblomaasi safiir buu noqday wasiir khaarijiye noqday prime minister buu noqday xilal kalena wuu qabtay inta uu shaqaynayay maanta wuxuu inooga baahan yahay duco ilaahay ha u naxariisto ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay jannatul firdaws ha geeyo ilaahay qoyskiisa carruurtiisa qaraabadiisa ehelka shacbiga Somaliland iyo qaranka samir iyo iimaan ha ka siiyo